madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo qasriga madaxtooyada magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ma isku qaabilay guddiga taakulaynta dadkii la ku barakicay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo guddiga ku dhuwan sidii warbixin ka saabsan walyaabo in qabsoom iyo dadaaladii oo ka jaran guddiga oo meelo ku hadri ma iyo tilmaamina intii iyo ka guulaysadeen intii reed dejin oo soo biyaan dadkii la ku musaafiri magaalada Laascaanood saas oo kaleedna xaaladda caafimaad iyo tagnololeed biyo ku warqaban iyagoo dadaalka biyaha sidii gargaar dhameystiran bulshadaas landeersiyay lahaayay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo guddigan ku mahadnaqay sida iyo garab surmeen walaalo joolaha ku barakicay magaalada Laascaanood ma isu xusay intii socdaalkii Muqdisho uu saakalo kulmi madaxdanka sareyta qaranka iyo danjiriyalka beela caalamka fadhi Soomaaliya muhiimadii oo hay'adii sidii gargaar degdeg ah handeersii lahay shacabka la ku musaafiri magaalada Laascaanood ee ka sugan magaalada madaxda gobolka Baay ee Baydhabo madaxweynaha iyo tilmaamay intii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dadaalo badan ka biyo doonta sidii shacabkaas landeersii lahay gargaar dhameystiran aadan abdi isaaq oo gudoomiyaha guddigan iyo warbaahinta dowladdu ku warbi maynu se tilmaamay intii kan guddihan iyo sii wada doonaan sidii dadaalo iyo landeersii lahaayeen dadkii la musaafiri magaalada Laascaanood ee gobolka Sool geeko ee taariikhda 4 Oktoobar 2021 oo guddiga oo aan ka hay intii dadkii la ku barakicay Laascaanood oo la shaqeeyay guddigii magaca madaxweyne Abdicasiis Laftagareen ayaa maamul hoolni ku socotay magaalada Baydhabo wali geeka la kulanay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed waliba ku warbiinay wala deegaanka ku socdo dadkii habarakacay iyo wala lanqobaday guud ahaan hadda Koonfur Galbeed waliba ka suguna dadka dhow 150 qoys iyo saasoo kala dad gaargaar ah oo meel raayay deerayaan tiradii ilaa 70 qof oo qoysasan kuma hayna gaargaaran kooyan shakhsiyaad guud ahaan dadkaas markii la iska dad dhow 700 qof marka madaxweynaha waliba warbixin ku siinay sida la handhawaay bulshada sidoo ku qayb qaadatay iyo guud ahaan dal idibid siyaasiin gaargaar koox dadka san ku qayb qaadeen bulshada iyo dhalinyarada degmada san ku qayb qaadeen Baydhabo yaan ku warbiinay saasoo kale madaxweynaha waliba ni update gareeyay intii meel aray qorshooyin dawladda wada jaraan oo dawladda heer federaal iyo heer state wadaan oo dadkan dibadejin lanka soo bidoona warbixintaas shal qaadanay in ku badan 150 qoys oo ku jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo maamulka Soomaaliland ku barakicay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo saaxiibada beela caalamka may wadana dadaaliyo ka jaran sidii bulshadu la ku barakicay magaalada Laascaanood landeersii lahay gargaar dhameystiran kulanku madaxweyne Laftagareen uu salwaalday guddigu may qayb ku eeya kulamo la ku xoojiyay sidii dadkaas masaakiinta ee gargaar julan sii kordhiyay lahaay Faisal Maxamed Isa TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed madaxtooyada